سهري ساكا way xanuunsanaysaa ilaahay khayr ha siiye Mustafa Cabdi Qays ayaa saaka geeyay dhakhtarka alla soo caawiyo Sahra Cali Xasan Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ifka wax la isku yiri aakhiro waxba la isuma aha saaka halkan waxay ula sugan oo ila jooga saaxiibkii Abwaan Tuke waxaanu ummadda Soomaaliyeed iyo reer Somaliland boo weysiinayna inay xanuunsanayso fanaanadeeni weyneed ee Sahra Cali Xasan oo runtii ku suntanayd halgankii dib u xoreynta qaranka ee 1988 iyadoo ka mid ahayd bahdii fanka ee taageerada iyo dhiirigelinta u ahaa halgankaas iyo dib u xoreyntii qaranka Somaliland Sahri saaka way xanuunsanaysaa ilaahay khayr ha siiye Mustafa Cabdi Qays ayaa saaka geeyay dhakhtarka shaybaadhkeedina wali waa la sugayaa Sahri waxay u baahan tahay taageero in la garab galay u baahan tahay in la caawiyo oo dhakhtar weyn la geeyo u baahan tahay hadhow tolo qofku markuu dhinto ayaynu xabaashiisa ka barooranaa qofku intuu nool yahay buu taageero inooga baahan yahay waxaan hadalka inta badan u deyn doonaa saaxiibkay Abwaan Tuke oo garab taagan ku soo dhaw Abwaan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed markay joogtay dibadda iyo gudo si gaar ah waxaan u salaamayaa jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeeda iyo dawladdeedaba sida uu sheegay saaxiibkay Xarago waxa xanuunsanaysa ilaahay caafimaad ha siiye fanaanadii qaaliga ahayd ee heeseeda jacaylka iyo kuweeda wadaniga iyo kuweeda halgankaba aad loogu raaxaysan jiray Sahra Cali Xasan ahna xaaskii ilaahay u naxariistay agaasimahaygii hore muusiishkeygii qaaliga ahaa Cabdi Maxamed Jaamac Sahri way xanuunsanaysaa ilaahay caafimaad markuu raasiyo halkan waxaan canaan uga dirayaa nimanka marka ay doonayaan kuraasta inay si hawl yar ugu soo boodaan shacbiga qalbigiisa hantaan oo codka loogu shubo soo qaata heesaheedii mujaahid arlaystayow dhinac walba ka istaadha marka ay kursiga tagaan ama madaxnimadii doonayaan taabtaanna aan cidnaba iyada iyo cid kale toona u eexanin iyo inamada doonaya habeenkii markay islaantooda inay iska maslaxaan doonayaan heesaheedii jacaylka iska horeysiya iyadoo garoonka loo sii xaadhayo wixiiba ay maydhmeen reerkiyo u diyaara u taga heesi jacaylkaaba iska sii horreysiyeen kula farxa muuqaaladeedii iyo cododkeedii reerkooda kula ciyaara war tacab weeyo waxa reerkaagu ku dhisan yahay waa tacab waxaad codka ku heshaa qof leeyahay oo dad leeyo oo madan leedahay ogaada markaa madaxda noqotaan dadkiina jilicsan dadkiina qaaliga ah dadkiina sooyaalka ku jira waliba annagu waxaanu leenahay wasaaradda wax soo saar oo sanadkii lagu xisaabtamo percentage ay soo xarayso dawladda nimka joogtana wasiirada ugu qaalisan baa wasiirkaygiya haddana waxaa soo dayacay hooy jiraan waxaan leeyahay saraakiisha reer Somaliland siyaasiyiinta mid xil haye mid aan xil haynba waa fanaaniintiini kuwa maanta loo aasayaa wax yar oo lagu daweeyay hadhowna aasi og baadeetiino waxay sheegay adeerkay Maxamed Xaashi dhamac gaariye aaskeeda iyo tacsideeda meel iska tagtaan la waayay hal la soo caawiyo Sahra Cali Xasan halka ugu daran imka ay u baahan tahay in laga qala waa xameetida iyadoo wali aan shaybaadhkii nooman laakiin dhakhtarku wuxuu hordhacna siiyeen xameetida ay dheecaan sameynaysa haddaan imka laga jeexin waxaan idin leeyahay aasi og imika daweyn og inaan noqotaan ayaan idinka rajaynayaa aad iyo aadna waan idin salaamayaa qoladiina saxaafaddana waxaan leeyahay meel dheer u gaadhsiiya Sahra Cali Xasan kiliibkan intaa ayaan ka badan xaq baan ugu leeyahay